aw laamastumun nisaa meeshiisa ayaa markaasi fuqahada isku khilaafeen fuqahadan sokana ma ahan khilaafku saxaabadii uu ka soo bilowday saxaabadii qayb kamid ah waxay ku fasireen aw laamastumun nisaa jaamactum ayaa laga soo wariyay inay ku fasireen akthar saxaabana waxay ku fasirayeen sidiisaas u daayeen oo laamastum inuu labsigii taabashadii yahay aimadii ka dambeysana sidaas oo kale isku khilaafeen imaam shaafici wuxuu ku fasiray laamastum waa taabasho dumarka oo la taabto waa laga weeyso qaadanaya imaam maaligna wuxuu leeyahay waxa weeye jimaaciyo hadii uu jimaaco ayuu ka weeyso qaadanaya taabashada markaas burin mayso sidaa darteeda markaa waxa weeye qofku hadii uu markaa inta taabto uu ka weeyso qaato salaadiisa mar hadduu weeyso qaato la iskuma haysto oo waa saxiix aimadii bi ittifaaqi muslimiina oo dhan salaadiisu saxiix bay ku tahay hadii laakiin kii awal lahaa maxay ahayd jimaac weeye iyo kii lahaa waa taabashaba hadduu ka weeyso qaato qofku bi ittifaaqi muslimiina ay waxay ku tahay salaadiisu saxiix laakiin hadduusan ka weeyso qaaban salaadiisu waa salaad la isku haysto oo waxa weeyaan dad badan oo muslimiinta kamid ah xataa haddaan loo fiirin madhabka adiga aad haysatay haddaan lagu fiirin oo la madhabiya aad tahay ama qof iska caamiye tahay salaadaadu waxa weeyaan waa la isku haystaa haddii aadan weeyso qaadan inta dumarka taabato aadan ka weeyso qaadan salaadaadu waa la isku haystaa oo waxa qolo leedahay muslimiinta in badan oo kamid ah salaadaadu ma ansaxayso ka weeyso qaado way buraysaa haddii markaa laakiin aa weeyso qaadato salaadaadu waxay martay meel aan la isku haysan qiyaamo marka inaad salaad la isku haysto ilaahay la hortagto iyo mid aan la isku haysanin oo cid khilaafsan aysan jirin inay markaasi ay tahay salaadaasi salaad shuruudeeda oobsatay cidii dana aysan jirin in ilaahay la hortagto ilaan labadan imaam khilaafkoodu ilaahay xaqiisa mas'aladu waa hal mid xaq waa hal mid laba ma aha mujtahidiinta waxaa la yiraahdaa waa ma'juur kullu mujtahidin ma'juur haddii uu waafaqo xaqiina laba ajar buu leeyahay ajrul isaaba wa ajrul ijtihaad haddii uu ag marana hal ajar buu leeyahay ajrul ijtihaad isaga iyo wixii kuwa wadadaas ku raacaba ma dambaabayaan isaga iyo wixii wadadaas ku raacaba hal ajar bay leeyihiin marka xaqiiqadu ilaahay xaqiisa waa hal wada weeye aimada laakiin waa raxmad weeye ikhtilaafku oo wax dhiba malaha hadduu mujtahid gaaray qof aan khilaafkiisu ictibaar lahayn hadii mala raacayo laakiin imaam mujtahid oo diinta loo aaminay hadduu wadadan maray cidii isaga ku raacday iyo asaguba way badbaadayaan hada markaa maadaama ay tahay xukunku hal mid ah cinda Ilaahi uu xaqu hal mid ka yahay si markaa aan wadada la isku haysto hadaa marto ina waxa laga yaabaa markaas aad ag martay wadadii xaq ahayd laakiin wada aan la isku haysan hadii aad marto عند الله مركا حتى تي صواب كهذا حق أهيد عند الله حقيقة أهان حق كأهيد بعد مرتي إلا لسكم ما بخلاف سنة إن الصلاة دا وصحت هاي دا كوي سقادته عيد كلها يسها كوي سقادا أو إسلامه مجرته مركا وحاول أكسن وقفكم إنه عبادة دي إلى شذا يسوع عنادي ولد شذا يتعصب شافعية دا كو خلاف إنه محاوي أن محل شيء إن من مركو صلاة سيدين عبادتها waxaaska soo dhunkanaya kadib aan salaada galaya oo waxaan muujinayaa nooleynaya sunna nooleynaya oo taasi fahmi qaadi aween wada aan la isku haysan adoo heli kara mid la isku haysta inaad u ijtihaado aado taas sax ma aha laakiin mac dalika hadii aad madhabkaas inaad u gaftana sax ma aha madhabka qabsaday imaam Maalik oo kale oo isagu aaminsan inaanay salaadu burinaynin taabashadu ina u gaftana sax ma aha madhab sax oo jira weeyaan oo imaam mujtahid u maray marka ilaahay wuxuu yiri aimada marka imaam Shaafici waxyaabaha uu daliishanaya waxa kamid iyo waliba saxaabadii marka horeetaba soo bilaabay taabashadani waxa inaanay salaada waxa burinayn jimaaca aysan ahayn taabasho looga jeedo waxa uu daliishanayaan aayad kaleeto oo falamasuhu bi aydihim oo ilaahay ku yiri lamsigu inuu yahay gacanta wax lagu taabto ay aayadaasi fasiraysaa oo labada aayado is cadeynayo inaan jimaac looga jeedin teeda kala maba ku soo aroorin baa la yiri lafdiga ficilka lamasa ficilka massa isagoo jimaac looga jeedo quraanka in badan uu ku soo arooray
لكن فعل كلمة أو جماع لو جد القرآن كهل ما لنا كما سؤالورين